Ya. Kuwa arta maanta la keenay kuwan. Ke? Kuwa maanta la keenay kuwa. Kakas. Kuwa Wax ay wacdo ma laha Allah ni. halka xad waa qaata sumuni. Wallahi billahi tala ma yaman. SBC ay tumar kasno. Ha? SBC. Hala. Sheeko keenay la soo bari. Ya, ini gelo wa shwa gaskiya gurin da suka kofkan gaskiya wa sai. Awal ma. Ha, marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, beras bantuan dari masyarakat Indonesia sebanyak 1000 ton telah tiba di pelabuhan Mogadishu di Somalia, dan kami akan serahkan secara resmi kepada pihak pemerintah di Somalia. Yang saya hormati dalam hal ini saat ini ada Ibu Menteri dan ada Bapak Gubernur Mogadishu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan joogno dekedii Muqdisho, markabkiina oo si nabad ku imaaday. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay mucaawinadii aan wadnay ee ka imaaday shacabka Indonesia gaaraysa ilaa 40 container ilaa 1 tan oo bariis ah ee soo gaartay. Waxaana la joogo maamadeena aan aad ku ixtiraamno Doctoraysa Maryam iyo sidoo kaleeto wakiilka ka socday gobolka Banaadir. Alhamdulillah. Semoga bantuan ini bermanfaat untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kami yang hari ini harus menderita karena ujian kelaparan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga persahabatan Indonesia Somalia akan dimulai dari saat ini. waxaan rajeynaynaa kaalmadan aan keenno maanta inay anfici doonto dad badan oo dhibaataysan oo abaaraha iyo roob la'aanta Soomaaliya ka jirta ay saameeyeen. Insha Allah sidoo kale waxaan rajeynaynaa inay noqoto tan eeg maanta ka bilaabato xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Indonesia mid sii socdo, walaaltinimadooda, saaxiibtinimadooda maanta laga bilaabo. Insya Allah dalam 1 pekan 2 pekan ke depan masih akan ada pengiriman lagi beras dari Indonesia ke sini. Semoga bisa sampai ke tempat ini sebagaimana yang sekarang juga bisa tiba dalam waktu 1 bulan lebih 3 hari ya. Dan lebih lanjut saya akan serahkan secara resmi bantuan ini kepada Ibu Menteri yang terhormat.
waxaa insha Allah labada isbuuc ee soo socotane waxaa imaan doona ama soo bixi doona maraakiib kale oo mucaawin aan ugu talagalnay dadka Soomaaliyeed maantana si rasmi ah waxaan ugu wareejinaynaa mucaawinadan maama Maryam wasiirada gargaarka soo dhawaw maama Pak tunjukin Pak naikin dikit ke arah kanan tunjukin Pak kamera oke terima kasih sambutan dari Ibu ya على رسول الله marka hore waxaan uga mahadnaqaynaa walaalaheen reer Indonesia oo isu xilqaamay inay wax iska soo ururiyaan oo dadka walaalahood oo Soomaaliya abaaraha ay ku saameeyeen inay ugu deeqaan raashinkan ay noo soo direen marka waxaan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ilaahayna ha idinka siiyo abaalkeeda markana waxaan jeclaan lahaa deeqdii maadaama aan ka guddoonnay inaan ku wareejiyo guddiga gurmadka abaaraha qaran Sheekh Bashiir oo meeshaan nala joogo ayaan rabaa kasih langsung kepada Sheikh Bashir sebagai perwakilan dari langsung di السلام هذا الكوبي كريم كدي وحنا ما علينا ولا لنا إندونيسيا ذلك يوقلين إن خصوصاً وعلى الصومالي يسوق المدن أيقون ملفق دجن مكروتي قام علينا في إندونيسيا جمعية خيرية أكت يو شعب إندونيسيا يحكومة دي سبب دمان ومهسيين كنتي درين walaaltinimo ayay maaragtay ka tarjumayaan sidoo kale wasiiradeena qaaliga nagu waa mahadsantaa ayadana dadaalka ugu jirto in dhibaatadan laga baxo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddigii intii diyaarinta barnaamijkan iyo soo dhaweynta ragga martida ah iyo fududeynta arrimahan la xiriira markabkan oo mucaawino noo sida ayagana maaragtay sidoo kale warbaahinta ayagana waa mahad celinaya jazaakum Allah khayran dhamaan waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gargaarka Maryam Qaasin iyo mas'uuliyiinta kale iyo warbaahinta waa mahadsantihiin anigu ku hadlayo magaca gobolka Kaad waxaan aad iyo gurmadka abaaraha ay ugu talagaleen in la guddoonsiiyo hay'adan ACT oo Indonesia قبل شغليس وحوالي ما ممتاز أنا صغير أنا deeq macaawino raashin ah oo ka timiday dalka Indonesia gaar ahaan hay'adda ACT waxaana ku joog ahaa
guddigii abaaraha iyo maamulkii gobolka Banaadir deeqdan oo ka kooban 1,000 tan oo raashin ah waxaa lagu talagalay in ay la siiyo dadkii abaaraha masaakiintii barakacayaasha abaaraha gobolka Banaadir kadegma ahaan anaka waxaan ku nafti nagula casuumay inaan ka mid noqono tiimkaas ama kooxdaas meesha timiday waxaan soo dhaweynaynaa in ummadan masaakiinta ah oo